dadka qaar si kala laga yaabaa inuu fahmo wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaalaa waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo ma dhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirta ee way sal isu waafaqin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa kugu daliil meel kale ka keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam muaad bin jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay muaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadiina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaayo kitaabki laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo seeda yeela marka oo hadaan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo igmanaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri muaad bin jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiir qaybta labaadna waxay yihiin dad iyagu dadka ka qosolsiiyo oo masaajidda uga qosolsiiya dadka ayagoo marka ay dadka ka qosolsiinayaanna waxyigii ka dhigayo baahideenna inuusan dabooli karin baahiyaheenna nololeed adduun iyo aakhiro waxyiga inuunan dabooli karinay ka dhigaan ayagoo dadka marka qaab shactare oo kale ah uga dhigayo dhallinyaraday dadkuna ay iska qoslayaan khuduurada ku jirtana aynan dareemaynin oo waxaad maqlaysaa marka qof isagu dhahayo dad baa waxay yidhaahdeen qur-aanka wax kasta waa laga helaa ayay yidhaahdeen qur-aanku sidaan isu maamulayna maa ku jirto saan isu dooranayno madaxweyne u dooranayno ee muddada madaxweynaha ee keyta wakeyta waxyaabahaas qur-aankii miyaa laga helaa wax walba qur-aanka kuma jiraan markaabuu wuxuu cuskaday ama uu daliil ka dhiganayaa haddana nebigu sal ll ly slam mucaad ibnu jabal buu yeman u diraayey markaabuu wuxuu mucaadiyey oo ku yidhi bima taxkum maxaad ku xukumaysaa markaasuu mucaad wuxuu yidhi bikitaab illaah kitaabka allaan ku xukuma hadday qadiyad ii timaado markaas baa waxaa la yidhi hadaad fain lam tajid haddaadan ka helin kitaabkana sunnada haddaadan ka helin ajtahidu bira'yi ra'yigeygan ku ijtihaada waxaa laga qaadanaa buu yidhi marka meeshaas fain lam tajid qur-aanka inaan laga helaynin waxyaabaha qaar xadiidkaas saxiix miya mase waa daciif markaan leeyahay maqbuul iyo marduud saxiix iyo daciif miya iyo markaan leeyahayna culummadii hore ee wax cilmiga u lahayd xadiidkan anuu ka hadlayaa xagga ii dhig sixatan wa dacfan maba uga hadlaya hadda xadiidkan sidiisaba aan usoo qabanaba inuu daliil yahay aan ka dhigno fain lam tajid macnaheed fain lam tajid anta waay haddaadan adiga mucaadow ka helin seed yeelay adiga haddii qadiyadaas qur-aanka aadan ka helin arrin marka waa marka wax ku saabsan mucaad adiga mucaada haddaadan ka helin qadiyadii kitaabka ka waran way dhici kartaa aniga inaan qadiyad kitaabka ka fahmi waayo ama aan ka arki waayo ka fahmi waayo adigii waa dhici kartaa inaad ka fahmi weyso qof kalena inuu ka fahmo waa dhici kartaa marka haddii mucaadow adiga aadan ka helin baa la yiriye haddaysan ku jirin lama dhihin marka waxaan aada ula yaabay ninkaasi muxuu soo kordhiyey marka mucaad waa dhici kartaa qadiyad inuu kitaabka ka heli waayo غeyrkiis min asaxaabana inuu ka helo waa dhici kartaa laakiin fain lam tajid inaad ku macnayso fain lam tuujad fi lkitaab haddii kitaabka aan laga helin ama laga waayo inaad ku macnayso aaday qalad u tahay macnahaasina macno laysku qabsanayo ma aha fain lam tajid
macnaheedu waa iska macruuf. fain lam tajid anta ay anta, adiga haddaadan ka helin waayo, haddaan qur-aanka laga helin ma aha. marka in la yihaa ta kale qur-aanku baahiyaheenna oo dhan adduun iyo aakhiro qur-aanku wuu daboolayaa. oo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay, waxaanu korkaaga kusoo dejinnay kitaabkii isagoo wax kasta caddaynayo yidhi tibyaana likulli shay, wax kasta oo bani aadamku baahi u qabo qur-aanku hanuun buu kaga helayaa oo waa caddaynayaa. sida uu u caddaynayana waxay noqon kartaa mararka qaar binnasi, nas ahaan inuu u sheego shayga. nas ahaan macnaha waxaan ka wadaa arrintii sidii iyada lafteedii inuu cabiro oo uu nas ahaan loo sheego taas waa qodob. waxaa kaloo dhici karta mararka qaar bilishaarati waaliimaa, inuu ishaaro, inuu tilmaamo, oo tilmaamtaa dadka qur-aanka luqadiisana yaqaano waxa uu u baahan yahay qur-aan in wax looga istimbaadana dadka yaqaano way kala soo bixi karaan. mararka qaar bilmafhuum waa laga fahmaa, qadiyad buu qur-aanku si toosa u sheegay, laakiin wixii uu tooska u sheegay toos ahaanna xugunaa looga qaadanaa, faham ahaanna xugun kale yaa laga qaadan karaayo mafhuum baa la yidhaha.